Tani waa fariin murugo badan isla markaana ay ka timid Allah u naxariistay xaaskii uu ka dhintay Abwaan Sowraan, waxaana xaaska oo lagu magacaabo Casiise Cabdiraxmaan ay ka warantay qiimaha iyo sidoo kale wanaagga uu xambaarsanaa saygeeda. Sida dhammaanteen aan la wada soconno, Abwaan Sowraan waxa uu ahaa abwaan Soomaaliyeed isla markaana dadku ay aad u jeclaayeen. Inkastoo Rabbi dhammaanteen uu naga jeclaaday isla markaana horaan uu geeriyooday, laakiinse qofka xasuustiisu ay ku weyn tahay isla markaana mar waliba hadal hayo waa xaaskiisa Casiise Cabdiraxmaan. Qoraal kooban oo Casiise Cabdiraxmaan ay ka qortay Allah u naxariistay Abwaan Sowraan ayaa waxay ku tiri sidaan: waan jeclaa inaad nala joogto dunidan, waase nagu cilaysay. Waxaanu mar walba kaga soo duceynaa adduunkii aad nagaga soo tagtay. Ilaahay ayaa inaga kaa oofsaday, balse maanu ilaawin wanaaggii, waxsheegii, taladii, tusaalihii iyo tubtii toosneed aad sida waxgaradka iyo waayeelnimadu ay ku dhehneed noogu sheegi jirtay. Waxaan aniga iyo sidoo kale ummadda Islaamka haba Ilaahay aan kaaga baryaynaa inuu naxariista janno firdowso uu kugu casuumo, qabrigaagana uu ka dhigo beeraha jannada ka mida. Qoraalkan oo dad badan ka ilmeysiiyey waxaa qortay Casiise Cabdiraxmaan oo ah xaaska uu ka tagay Allah u naxariistay Abwaan Sowraan. Dadka badi ayaa u duceynaya abwaanka in Eebbe jannada firdowso uu ka waraabiyo. Casiise ayaa waxay tiri: waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan, weliba maalmihii ugu muhiimsanaa uguna khayrka badnaa. Qof waliba waxaan ka codsanayaa inuu igu soo duceeyo saygeygii naxariista iyo qiimaha badnaa ee Abwaan Sowraan. Waan ogahay qofka mar waliba niyadda ku haya keligeyga maahan. Qof waliba sida anigaan u xasuusto ayuu u xasuusan yahay, maadaama uu ahaa ruux wanaagsan oo dhammaanteen aan wada jecleen. Waa uu inaga tegay, waan ogahay maahan mid soo laabanaya, laakiinse dhammaanteen qalbiyadeenna waa uu ku weyn yahay. Balse mar walba waxaan idinka codsanayaa inaad u duceysaan in jannada firdowso Eebbe uu ka waraabiyo. Abwaan Sowraan oo horaan geeriyooday waxa uu ahaa abwaan, jilaa iyo sidoo kale shakhsi ay aad u jeclaayeen dadka, waxaana badi muuqaalada uu sameeyo badi ay ka hadli jireen xaaladaha markaas taagan, waxaana ay ku dhisnaayeen talooyin iyo sidoo kale tusaalooyin uu bixin jiray. Waxa uu ahaa qof qiimo badan isla markaana aad u wanaagsanaa, laakiinse fariinta ay soo dirtay Casiise Cabdiraxmaan oo ah xaaska Abwaan Sowraan ayaa waxay sheegtay in abwaanka uu ahaa qof qiimo badan isla markaana xilli kasta naxariis u muujin jiray. Waxa uu mar walba ahaa ruux ay garab taagan, midka igu heliya xilli kasta, midka cillada iga ilaaliya, ruuxa farxadda iyo sidoo kale nolosha waxay tahay iftiimiya. Laakiinse Allah ayaa horaan iga jeclaaday, balse fariintan waxaan idinkugu soo qoray mar waliba inaad u duceysaan Abwaan Sowraan.